131 waa qarniga 14aad socdaalkii ibnu batuuta ee muqdisho saylac markii aan ka soo boqolnay oo aan badda ku soo jirnay 15 habeen waxa aan soo gaarnay muqdisho oo ahayd magaalo weyn dadku waxa ay lahaayeen geel badan maalintii waxa ay gowracaan boqolaal kale waxa kale oo ay leeyihiin ari badan ganacsatadu waa hodan waxa ay sameeyaan agab magaalada magaceeda wata oo loo dhoofiyo Masar iyo meelo kale dhaqamada dadka magaalada degan waxa ka mid ah in marka ay dooni soo xirato ku soo xoomaan doomo yaryar oo sumbuq la dhaho mid walba oo doomaha ka mid ah waxa saaran rag da'yar oo uu mid walba hisido weel daboolan oo ay cunto ku jirto wiil walba waxa uu weelkiisii ku martiqaadaa ganacsado saaran doonta timid ma jiro ganacsado doonta ka degaya aan ka ahayn in uu raacayo inanka martigeliyay balse haddii uu horay dhowr jeer magaalada u yimid meesha uu doono ayuu aadi karayaa marka ganacsaduhu saldhigto yarkii martigeliyay ayaa u suuq geynaya alaabtii uu keenay una soo iibinaya waxa uu magaalada uga baahan yahay in ganacsadaha laga iibsado alaabtiisii qiimo ka hooseeya kan suuqa ama wax laga iibiyo isaga oo aan la joogin ninkii martigeliyay waa dhaqan gun ku ah bulshada magaalada agtooda waxa ay caadadaasi u arkaan mid mudan in la dhowro markii ay dhalinyarada soo fuuleen doontii aan saarnayn waxa ii yimid mid ka mid ah raggii ila socday baa ku yiri kani ma ahan ganacsade ee waa qareen markaasuu saaxiibadii ku yiri ninkan waxa uu marti u yahay qaadiga mid iyaga ka mid ah oo qaadiga saaxiib la ahaa baa u tegay qaadigii oo u sheegay imaanshiyahaygii qaadigii baa yimid xeebta isaga oo ay la socdaan koox ardaydiisa ka mid ah mid ka mid ah ayuu ii soo diray si uu ii soo kaxeeyo doontii baan ka soo degnay aniga iyo raggii kale ee ila socday waxaan salaannay qaadigii iyo xirtiisa waxa uu iigu yiri ina mari aan shiiqa soo salaannay waayo shiiqa ayaan weydiiyey suldaanka ayuu ku jawaabay waa caado inay suldaanka shiiq ugu yeeraan waxaan idhi markaan meel aan dego helo ayaan soo booqanayaa waxa uu yiri waa caado in marka uu qareen shariif ama nin maqaam sare leh halkan yimaado uu suldaanka soo booqdo inta uusan u hoyan meeshii uu rabay inuu dego sidaa baan yeelay sidaan hore u soo sheegnaba suldaanka muqdisho waxaa loogu yeeraa shiiq magaciisa waxa uu ahaa abubakar ibnu shiikh cumar sawrac ahaan waxa uu ka soo jeeday barbar waxa uu ku hadlaa lahjada reer muqdisho balse carabiga waa uu garanayay sida caadada ah marka ay doon xeebta ku soo xirato waxaa isku hareereeya doomo yaryar oo ka socda suldaanka si ay u ogaadaan meesha ay ka timid cidda leh iyo qofka naaquudaha ka ah sidoo kale waxa ay baaritaan ku sameeyaan alaabta saaran warbixintaas oo dhamina waxaa loo gudbiyaa suldaanka oo marti qaad u fidiya cidda uu arko in ay u qalanto markaan soo gaarnay qasriga suldaanka aniga oo la socdo qaadiga oo uu magaciisu ahaa ibnu burhaan al-misri wiil yar baa salaan nagu boobay qaadigii baa deedna ku yiri orodoo shaqadaada qabso suldaanka u sheeg in ninkani xijaas ka yimid fariintii qaadiga marka uu u gudbiyey waxa uu soo laabtay isaga oo sida weel ay ku jiraan caleenta tambuulka ee la cuno iyo filfil waxa uu isiiyey 6 tambuul ah iyo xoogaa filfil ah intoo kalena waxa uu siiyey qaadiga wixii soo harayna waxa uu u qaybiyey raggii ila socday iyo xirtii qaadiga waxa kale oo inoo shubay biyo laga keenay Dimashq oo loo yaqaanay maa'ul wardi waxa uu yiri suldaanka waxa uu amar ku bixiyay in ninkan la dejiyo hoyga xirta gurigan waxaa si gaar ah loogu dhisay xirta gurigii oo aan qasriga suldaanka ka fogeyn baan deedna la igeeyay waa guri dhulkiisu wada roog yahay oo ay yaalaan wax walba oo loo baahan yahay xoogaha kadib baa isla wiilkii cunto inooga keenay guriga suldaanka waxaa markaan la socday nin ka mid ah wasiiradii suldaanka oo shaqadiisu tahay soo dhaweynta martida suldaanka waxa uu inoo sheegay in suldaanka salaan inoogu soo dhiibay dabadeedna cuntadii baan cunnay cuntadoodu waa bariis dufan lagu kariyey oo
lagu cuno saxan weyn oo alwaax ka samaysan oo ay la socdaan saxamo kale oo yaryar oo ay ka buuxaan digaag, hilib, malaay iyo khudaar. maraq waxa uu ah moos ceyriin ah oo caano lagu kariyey. waxaa kale oo cuntadooda la socday weel ay ku jiraan caano garoor ah oo la kariyey oo lagu daray qal, sacfaraan, sanjabiil iyo filfil, dushana cambo laga saaray. cambuhu waa miro sida tufaaxa oo kale ah laakiin gudaha laf ku leh. kiisa bisil aad ayuu u macaan badan yahay, balse kan ceyriinka ah waa dhanaan. waxaa caado u ah in marka ay hal cantuugo oo bariis ah afka ay ka buuxsadaan ay ka dabageeyaan dhandhanaanka ku jira weelasha kale. halka qof ee reer muqdisho ah waxa uu cunaa inta koox inaga mid ah ay cuni karto, waana sababta ay la xoog iyo cadiin badan yihiin. marka aan cuntada dhameeyey ayuu qaadigii baxay. waxaa halkaas joognay 3 maalmood oo maalin walbaahay 3 jeer cuntada la inoo keenayay sida caadada u ah. maalintii afraad oo jimco ahayd waxaa inoo yimid qaadiga, xertiisa iyo mid ka mid ah wasiirada suldaanka oo inoo keenay dhar ka kooban go'yaal dhexda lagu xirto oo booska surwaalka ugu jira reer muqdisho. maadaama aanan surwaal aqoon, waxaa kale oo la ii keenay khamiis noociisu masaari yahay, hu lagu dul huwado oo asalkeedu qudus yahay, iyo duub tilmadiisu misri tahay. raggii kale ay la socdayna waxaa loo keenay dhar ku habboon maqaamkooda. deedna waxaan aadnay masjidka weyn oo aan salaada ku tukanay meel ka dambaysa maqsuurada masjidka. markii uu suldaanku ka baxay albaabka maqsuurada baa waxaa salaamay aniga iyo qaadiga. soo dhoweyn kadib qaadigii buu afkoodii kula hadlay. deedna aniga oo ayuu af carabi igula hadlay waxa uuna yidhi waa inoo sharaf inaad dhulkeenni soo booqatay oo aad inoo soo martiday, soo dhawaaw baan ku leeyahay. kadib waxa uu u baxay barxadda masjidka, halkaa oo uu wax yar ku dul hakaday xabaal uu aabbihii ku duugnaa, isaga oo qur-aan iyo duco ku dul akhriyey. kadib waxaa salaan ugu yimid wasiiradii, amiiradii iyo taliyayaasha ciidanka. marka ay isi salaamayaan waxaa caado u ah sida Yimanta in qofka wax salaamaya uu farta suulka xigta ciida geliyo, dabadeedna madaxa ayuu taabsiiyaa isaga oo oranaya cisigaagu hawaaro. intaa kadib suldaanka ayaa albaabka masjidka ka baxay isaga oo horay kabihiisa usii gashaday. qaadiga iyo aniguba waxa uu nagu amray in sidoo kale aan kaba gashanno. dadka inta kale ee soo hartay waxa ay socdeen iyaga oo cagacad. waxaan qabanay xagga iyo guriga suldaanka oo aan ka fogeyn masjidka. dushiisa waxaa lagu siday dalad afargees ah oo xariir ka samaysan. dhakada gees walbaay waxaa ku sawirnaa shimbir midabkiisu dahabi yahay. waxa uu maalintaa suldaanku xirnaa hu qudusi ah oo cagaaran, khamiis iyo duub masaari ah, durbaano iyo boonga noocyadiisa kala duwan baana loo garaacayay. waxaa horay iyo gadaalba ka socday taliyayaasha ciidanka. geesahana waxaa ka socday qaadiga, culimo iyo qeybo kale oo bulshada ka mid ah. waxaa sidaa lagu gaaray goobtii wadatashiga ee ku taalay guriga suldaanka. wasiirada, amiirada iyo taliyayaasha ciidanka waxa ay fadhiisteen fadhi loogu talagalay. qaadiga waxaa loo fidiyey darin u gaar ah oo uu keligii ku fadhiistay. waxaa halkaa la joogay ilaa iyo salaada casar laga gaaro. salaada markii laga baxay waxaa yimid ciidamadii oo saf ugu jira sida ay u kala sareeyeen. waxaa mar kale la garaacay baambeydii ciidamada. inta baambeydu socotay wax dhaqdhaqaaq ah cid samaynaysa ma jirin. markii ay dhammaatayna dadkii meesha joogay waxa ay bilaabeen in suldaanka ay salaamaan sidii aan horay usoo sheegnay. waxaa u caado ah in ay sidaan sameeyaan maalinta jimcaha ah. maalinta sabtida ah dadku waxa ay yimaadaan guriga suldaanka iyaga oo fadhiista albaabka guriga qaadiga, culimada, qareennada, ragga soo xajiyay iyo ajiduba waxa ay galaan qol
ku yaala guriga oo loogu talagalay. qaadiga waxa uu fadhiistaa kursi isaga u gaar ah. qolo walba oo kalena waxa ay leedahay kuraas loogu talagalay oo aana cidna cid kale kaga fadhiisan. marka suldaanku soo galo xafiiskiisa oo uu fadhiisto waxaa loo diraa qaadiga oo dhinaciisa bidix fadhiista. kadibna waxaa ku xigsada culimada oo kooda ugu weyn suldaanka hor fadhiisto. kuwa kale ee soo harayna suldaanka unbay salaamaan, dabadeedna waa ay iska noqdaan. waxaa haddana ku xigsada ajida bulshada oo kooda ugu weyn suldaanka hor fadhiisto, kuwa kaleetana inta salaamaan ay dib u noqdaan. balse haddii suldaanku oo marti u yahay waxa ay fadhiistaan dhinaciisa midig. wasiirada, amiirada iyo taliyayaasha ciidankaba waa la mid oo sida kuwa oo kale ayay u dhaqmaan. cuntada marka la gaaro suldaanka iyo inta meesha uu fadhiyo joogtaba waxa ay ku cunteeyaan hal meel. kuwa kale ee soo harayna waxa ay ku qadeeyaan qol gooni ah. haddii uu rabo in mid ka mid ah amiiradiisa uu dalacsiiyo waxa uu ku martiqaadaa in uu la cunteeyo. marka uu suldaanku ku laabto hoygiisa gaarka ah, qaadiga, wasiirada, xoghayaha iyo afarta ugu sarreysa amiirada waxa ay bilaabaan in ay qabtaan dacwadaha iyo cabashooyinka dadka. arrimaha diinta la xiriira waxaa ku shuqul leh qaadiga oo garteeda gala. kuwa soo harayna waxaa shaqo ku leh golaha wasiirada iyo amiirada. haddii ay arrini ka maarmi weydo amiirka waxaa loogu gudbiyaa qoraal, isagana waxa uu xukunkeeda ku soo gudbiyaa qoraal kale. waa sida caadadooda ah. warbixintan waxaa tarjamay Cali Barre.